waxaa maanta soo gaadhay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar xubno qurbajooga oo kamid ah qurbajooga gobolka kuwaas oo hogaaminayay gudoomiyaha ururka shaqaalaha Soomaaliland oo ah urur siyaasadeed dhawaan looga dhawaaqay dalka Ingiriiska Khaliif Xinwaal isla markaana uu helinayay xildhibaanka gobolka Aadan Tarabi Ogle iyo xubno kale ugu horeynba waxay xubnahan qurbajooga markii ay soo gaadheen magaalada Caynaba si diiran halkaas ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta heer gobol iyo mid degmo horkacayo barasaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali waxaana ay xubnahan oo kala ah Khaliif Xinwaal Cabdiraxmaan Maxamed Doodi Faadmo Aadan Ismaaciil Nawaal محمد يا عبد الرزاق محمود أرنب أي كورمير إندينا كوسو مرين مشاريع دهور من ذاك الصعود قبل كسرار إذا حبسي قد حي يسمع حرونته مامل قبل كسرار وعين هالكاسي وربحنا كقد جيستين قدوميها قبل كسرار إبراهيم حاج حسن علي يجو قربتشوك كلا قبل كان أورد شينا وكبوريي وقنا باقيين كسو قيقاتان هرمونيته قبل كسرار كسعطاء راح حسين الشيخ ساو شغالي سوق كلام كرتا وحبيست والو كرتا ثلاث كلو لو سو كرتا مستقبل كنا waxaan doonaynaa deena inay si socoto marba wixii markan kala oo si kordhiyo inta ka noqonayo xabsi weyn waxaan ugu talagalay in geedkan oo wanaagsan gudihiisana waa gali doontaa inuu xabsigiisa xaggan bariga ugu weynaa wixii tog dheer ka sokeeya xabsi weyn oo noqdo sheekana oo runtii si caqiibo leh loo dhisay سوعنا اللوجو سعودي ولينا الصعدة كتلاقيها قيب دمر كتلاقيها قيب رجع كتلاقي سبيس وبنانا وحدي محابيس تشغل الله وصل كيلا هي شركة وشركة وين مركا كبر كتقدر مجاي ما طيب لا يبري وقاد لو يقول ما هالسنة ما ممكن كبر هاوش كشة أي سحر قامي يد وينها خير أنا إسكا وحق أصدق الشقي runti waa kaalin weyn ay ka soo baxeen hawl weyn oo qabteen waxay u baahan hawshii Allah iyo dadkay qurba jooga ay gobolka ka soo jeeday inay hawshooda ay wanaagsan ka geystaan qayb libaxle aad iyo aad ay u mahadsanyihiin inahay istarka Caynaba alxamdulillah caalamiin ilaahay lagu tusay waxa magaranayay baayaha uu qabo dhakhtarku day badan waxa muuqda baahiyo badan uu qaba uu baahan yahay سيدنا أخرى هرية بحلو قطع فإن شاء الله تعالى تديك الله ورسولها بس باهيات النور شيء بس باهيات الخوف هرية بعدنا إن شاء الله تعالى باي تكتب ياخذ مهري شيء يديك الله لو بيلعبها وكان قاعدين هويت في لندن dadka reer Soomaaliland ay hay'adaha iyo NGO-yada iyo wax ka sugan waxaan oran lahaa in ku dayda sida gobolkan Saraar inay iskood wax u qabsadaan hadday iskood wax u qabsadaan wax qurux badan ayay dhisanayaan way waxa mudeena baabiyay halkii la rabo maxaa qabsan weeyay waxa loo leeyahay dhaqaalan loo hayn waa dhaqaalaha idinaga hayna muruqeenu ku jira maskaxdeenu ku jira iska wax u qabsado ku jira waxaan la lagu daydo gobolkan wax qabadkiisa iyo dhagaxa qurux badan oo dhisay iyo maamulkiisa iyo sida uu tabaabusheeyeen waa wax lagu dayan karo marka waxaan la dadka NGO-yada wax ka suuqyo hay'adaha dadkiina wax ka qabsado wala fiilna xulisa waa maasantii xubnahan qurbajooga ayaa sidoo kale si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha deer cusub oo uu yeelan doono isbitaalka guud ee Caynaba maanta halka waxaan isugu nimi inaynu dhagax dhigno geedkii ama muxuu ahaay xuduudii isbitaalka oo hore ay uga ballameen maamulka gobolka gudida horumarinta caafimaadka ee gobolka iyo qurbajooga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saraar ka qayb qaatay muxuu ahaay qurbaha ilaa America ilaa Australia ilaa Sweden muxuu ahaay Europe kale ilaa UK London Cardiff waxayna sidoo kale booqdeen dadka bugaanjiifka ah ee ku sugan wararka cusbitaalka ugu dambeyntii waxay kulan kula yeesheen xarunta maamulka gobolka Saraar mas'uuliyiinta gobolka waxayna uga mahad celiyeen maamulka gobolka sida diiran ay halkaas ugu soo dhaweeyeen waxayna sidoo kale qadar lacag ah oo ay soo dhiibeen haweenka qurbajooga ee ku nool wadanka Ingiriiska ay Faadmo Aadan Ismaaciil gudoonsisay gudoomiyaha gudida caafimaadka degmada Caynaba Salabaan Cabdi Dirir aan runtii cabiri karin baan ugu mahadnaqaynaa qurbajooga nala jaan qaaday waxaan u arkaa iminka maamulkii iyo dadweynihii iyo qurbajoogii inay isla wada jaan qaadeen waxaan ku sii darayaa hay'adaha iyaguna jaan qaadka ku jiro oo runtii halgan badan bay ka wadaan gobolka horumarintiisa way wadaan ilaa 7 hay'adood baa iminka waxa dar bilaabaya iyo waxa ku sii jiray marka waxaan rajaynayaa isla jaan qaadka qurbajoogii iyo hay'adihii iyo dadweynihii iyo maamulkii waxaan rajaynayaa guul badan inay dhalin doonto
laba saddex sano ka bacdi haddii ay sidaa dadaalkaasi usii socdo waxaan rajeynaynaa in gobollada waaweyn inuu gobol ka mid noqon doono haddii alla ka dhigo. si kastaba ha ahaatee markii ugu horreysay ee xubnahan qurbajooga ah oo noocan oo kale ay soo gaadhaan magaalada Caynaba islamarkaana ay soo indheeyaan mashaariicda horumarineed ee ka socda gobolka Saraar iyagoo weliba sidoo kale ugu baaqay dhigooda qurbaha ugu maqan gobolka inay ku soo dhiiradaan sidii ay u horumarin lahaayeen deegaankooda. Maxamed Caynaba.